حور هذوك فاير كي أنت ماشي وقرأ يربح وحب كيسك وكقبوا ويدا سعو لعقت عن كولا ينقار يسوع علي لعقت مو كيس مو صدر لما ين موقت 400 يسوع علي كي 400 أنت ورا وكوجل قلي وحوس كقاطي كيسكي نمانكي مركا وديبي دق ما بقوا قالن بوح بدنبا هل بلاي كشقيين كيسكي نمانكي لا ديل غريا دسميسي كسو دغين بوسكي سي ku soo celiye marka niyo dhalinyaro badan marka inta maxkamadda ka wareeg waxay waxyaalo badan ay iga baxay labada tigid aan qaatay adiga marka waxaan maleynaa 16 years aan jooga labadaas tigid aan qaatay tigidadana Soomaalidu tigidada badan way sahladaan marka la sheekaysto darnuu tigidkaan qaatay inuu soo galata wuxuu leeyahay war iska bixi uu kuleeyay qof ayaa soo qoray kansi koonsis ka dhawkay ma karay marka tigid kale kugu soo hadda aniga waxyaalo igu qabsadeen ugu adkeeyeen waxa kamid ahaa oo maalinkii kuwaan marka uu soo wuxuu yiri tigidka wanu adag yahay wiil kuwa dambe uu tagay wuxuu yiri inuu tigidka hore qaatay miyaa jira san ha laakiin tigidkiis waa iga baxay wuxuu yiri ninkan hadda ka hor stop san hata ka wuu istaag laakiin waxa iska dhageysan mayno ku cilcilinayna anoo maxkamadii tagin oo meel aadin oo judge hormarin nimankii la soo habeeyeen waa ka saareen meeshii oo dhanba dhag marka waxaan leeyahay dhalinyarada lacagta looyarada raqiista oo badana Soomaalidu aado hal iska ilaaliyo aniga intaas ayaan sheegaa waxyaalaha soo arkay waqtigan waa ka luminayaan hawlna qaban maayaan وين الصوماليين مركز رقيست الرعنا أنا ورقيست الرعنا لكن لوير كشقينا هي أو وحيس ونمكن ونمك جروب هذا نمكن أنا وتجي وإيران كوي تبغى لوير ويسلا شقيده واي يركب وما ده حدا وير مسلم أو باكستاني وإنك كمبري كذا جود هايستا لكن من لوير را أو السن أو وحود أي وقت هدي هلان سف عنو شقينا أيوة سف يعني تنا فرتين أنسي مركوش سيجوسو شقيين وقت يجري كوسو كوبين وحي يردمب isla markiiba anoo meel aadin wixii soo dhameeyay warqada oo la ka saxiixay wallahi ali was badbaadisay trial hada aad lahayd aan dhici lahayd baaba waa bixi lahayd no waa bixi lahaa waa meesha ka carar taas waa trialka ka cararay marka aniga baalkaas laga taxadiro hadda waliba xaaladdu sida xaaladdu tahay dad dhalinyaro badan waxaan arkay fiiri haduu speedkaaga oo over 15 haduu yahay misdemeanor isku bedelay real life misdemeanor isku bedelay hadda Minnesota sharciyada waa la bedelaa shantii sano mar isbedelaan sharciyada traffic maartay loo waa isbedelaa marka hal iska ilaali sharciga cusub August 2025 uu bilaado waxa waa maqashay Soomaa sharciyo badan isbedelay sharciyo badan sidaas isbedelay war aniga ninkan soo qabso agaas soo qabsanayo arintan Spanish ustaad wax badan baa aniga ii muuqda Soomaalida inay ka qaldan walaalayaal oo marka tigir aad qaataan waxaad xaq u leedahay inaad isteerinka gacanta aad saarto aad tiraado mutaqaana kulmaha leesanka waa kana maxaad mutaqaana aad qabsato aad tiraada haddii tii lacag ku siiyo ilaahay kuma tusee waxaad xaq u leedahay inaad maxkamadda aad iskiisa kooniga tiirka laga siiba tagaysaa lacag ma bixinaysid charge-ka mutaqaana balanka qabsanaysaa waa in dadku Soomaalidu badanaa waxaan ku arkay website-ka haddaan soo diriyo ana every week اسبوع ana mutaqaana ana kuwan la shaqeeyo marka kuwan qaybta IT aan la shaqeeyo marka Soomaalideena database-ka waxa ugu badan DMV-da ugu badan waxa weeyaan waa tir baa la qaadanaa wala dhayalsanaa 14 days baa la soo dhigaa DMV warqada waa la maqan yahay ama Afrika lagu maqan yahay tirkii baa laga ceshanaa ruuxii lambarkan aad u jeedaan full weeyaan limited na wala yani waana half una dhameystiran yahay hadii sharax marka fullku wuxuu yahay waa marka aad imtixaanka ku baasto farta laga saar weeyaan oo marka aad kelina tahay farta laga saaraya marka uu halfka yahay waxa weeyaan waa marka afar tigir wixii ka badan aad qaadato kadibna oo lagu qabto kadibna waran lagu siiyo kadibna yani qof responsibility sita lagu geliyo 6 sano ku jira sita ku jiraya 6 sano ku jiraya 6 sano haduu ku jiro hadii aad xanuun oo qabta amalo kale gooni weeyaan handicap hadii aad leedahay gooni weeyaan hadii form bal buuxiya mutaqaanabaad buuxinsa formka waxaad ku difaacaysaa inaad dhahaysaa waxaan ka san qabaa tusaale kale qofka qaba saxinta oo la dhaho ee bilabsi ama si qofka qaba dhakhtarka iyo DMV-da maadaama connection ay wada leeyihiin maxkamadda waa umbrella weeyaan way isku xidhan yihiin judge-ka maxkamadda dhakhtarka DMV-da kullu isku xidhan yihiin hal database baa la isticmaalaa haddii maanta lagu shito isla markaaba 24 hours gudihii insurance-ga waa cirku aadaya
دي ام في ذا ورقه كسر دريسه فورتينس كبعدي listenkaagu markaa waana full waana limited markuu yaryahay listenkaagu waa marka lagu digo 4 tigir lagu siiyo haddana security gaariga aad wado haddana listenka laga ceshana marka listenka laga ceshado maxaa la dhahaa DUI baa la dhahaa DUI marka la dhaho qolada waxay kala yihiin DMV iyo DBS bay kala yihiin Department of Public Safety way kala yihiin qol baa lagu kulmayaa marka taas ka dhex galo DBS iyo DMV ga ani waxa haysata DBS ta haysato niyo okay waayo waxaan ku soo ayaan ku sheegay waxaan la hal evaluate waa taqaanaa Soomaaliya ha Soomaal ku hadlay evaluate ka la hadlay ninka evaluate marka la hadlay wuxuu ugu dhahay qoladan ku haysato oo prescription-ka hadday drop gareeyaan case-ka anakana waa ka saarayna meesha aniga prescription-ka waa la hadlay waxaan ku yiri case-kan waa qaadanaya madaxan u ridanaya nin raga ilaahay iga dhigay jalla wa ala ilaahay meesha ii qoraan la aadaya waa qaadana case-kan laakiin waa ina DBS ta laga saara waxaan leegeliyay DBS ta waa in laga saara haddii kala dagaal bay noqonaysaa been ma sheegay DBS ku walahan ku sharaxo DBS ku waa DBS ku waa dawladda u shaqeysaa waa DMV da host maada waa highway patrol la shaqeysaa waa Department of Public Safety baa la dhahaa safety waxa soo hoos kala any medication condition baa soo hoos kala taraga sidoo soo hoos kala wax walba soo hoos kala marka way kala shaqo kala duwan yihiin kuwan DMV du imtixaankii qaadaan waxay cusboonsiiyaan kuwan DBS kana caafimaadka qof kasta oo lisanka laga ceshaday qof kasta oo lisanka mataqaana soo cusboonsiinsa shuruudaha lagu xidhaa ninka haduuna shaqeynin lisan lama siinayo haddii la siiyo full lama siinayo 3 bilood baa mataqaana baa la dabagelayaa askari waxa la dhahaa private policy sid baa la dhahaa waxaa la hargareynayaa database waxaa loo soo gelinayaa askariga qofkan license perimeterka haysta addresskiisa maadaama xagga uu yahay waa la dabagelayaa waxa cadeyn laga haystaa qofkan inuu ku dhahay DMV DBS inuu ku dhahay waan shaqeeyaa waxaa la weydiiyay goor waad shaqeysaa 6 am to 3 pm okay waa loo qoray systemka inta la soo gelin qofkan maadaama uu patrol u sameynayo oo askari uu yahay waxa shaqadiisa loogu talagelayaa la dhahayaa qofkan arin degan yahay qofkan haduu tiri wixii ka dambeeya haduu socdo mataqaana aan ma soo qaadan karo inuu ma soo qaadan karo waa inuu ubar wacda ama inuu gaari kale mataqaana uu ka xayaa lacala hadii qofka la qabto maxaa ku dhacaya waa su'aal waxa ku dhacaya qofka licenka waa laga ceshanaya waa laga qaadanaya qofka mataqaana marba license mataqaana ma qaadanayo forever ma qaadanayo marka waa berbeshi ba qofka la gelinayaa haddaan u soo gudbo qofka haduu una shaqo haynin oo dhaho okay mataqaana shaqo ma hayi waxa la hayaa marka hore mas'uuliyad noqo kadibna noo la dhahayaa shaqada lama siinayo marka shaqada inay muhiim tahay oo responsibility koowaad ay tahay license la isku siiyo waa shaqada weeyaan lacala haddii qofka hadii lagu qabto waxa ku dhacaya qofka 6 am ilaa 3 pm ayuu qofka shaqeeyaa huu khiyaanay uu baxay gaaro kaas waa la qabtay maxaa ku dhacaya lisanka waa laga ceshanaya forever marta ma qaadanayo فهمت ما فهمت وما سنتهاي برادر أبديت في عنا سيسيني كاسودغا توبك تيكتك laga wareejiyay marka waa dhamaatay dadku waa caajiseynay sug baraka wala faa'iidaya tartiib walaalo topic kama muhiimsan ma jiro wallahi kama waa faa'iideeyay bal dadka kor soo qabsadayna daqiiqadan siino maxaa abdid noo haysaan ku socda hello assalamu alaykum salaam walaalo su'aal baan qabay inaan weydiiyo ani hadda ay haysataa tigir baan qaatay laakiin isbir tigir buu hakaygu dakora control ka qaatay shakbi balanteedu waxa weeyaan February 9 marka balantii hore lahaa waxay suun bay ahayd waxay ku dhahdeen 3 option bay siiyeen inaad tigirka bixisid systemka lagu geliyo inaad tigirka bixisid oo hal sano lagu eego iyo inaad maxkamadda toos u aadid markaas aan waxaan doortay maxkamadda inaan tago ma dooran optionada kale marka waxay ku dhahdeen maxkamaddu way wareysatay waxay ku tiri okay
weli may astaghfirullah weli maxkamadda ima yeedhin maxkamadda waxay soo qabatay 29 February ayay ballanaysa qabtay markaas hadda lawyer baa raadiyey 29 leeraa baa laygu soo xidhay ukaadi 29 kama tiri 29 bishan hadda ku jirno February bishan 29 ay leedahay no waa 20 waa 28 coin 29 29 ma 29 Soomaali bishan waa 20 ku dhamaysaa bishan February maalin aan jirin may ku ballamiyeen because 28 ka ugu dambayso kadibna March ko waa bilaabanayso mase 28 ka lagu ballamiyay 28 kan waa sabti weeyaan marka jimcaha ma lagu ballamiyay 27 ka mase maalin fake bay ku soo direen ay ku dhaheen maalintaas iska ilaali deedka iska ilaali hadii kale guriga kugu imaanayaan walaalo waxa tiraahdaa xilli ma la qabtay balanta midii lama bisha saddexaad inay tahay bisha kale inay tahay Allah hadii gabadha loo ballamay maxaa ku dhacaya su'aasha hadii walaashay aan u faa'iideeyo experience-gayga walaalo waxaad samaysaa expense kuma maqasho okay kaas taariikhdu raadinaysaa khadka ka maqataan wax yar su'aal weydiina ninka haduu yaqaano saaxiibo neehow hadii prescription waa soo laabtay walaalo hadda ballanta dib u jeegareeyay as 26 baan leeyahay okay 28 ku xigta dambeeyay okay yeah 26 baan leeyahay ticket ka qaadatay speeding way Soomaha ticket speeding qaatay marka meequ ahaa speed limit ka meeqa dhaaftay ma aniga waxaan maleynayaa naagtu inay naag bay siisay moogtay meel aan filanayn bay iga soo baxday markaas baabuurta wadada waan la saarnaa waan la wada sinaa ma waxay tiri markay istaajisay waxaad ku socotay 65 ilaa 70 baa ku socotay bay tiri 65 ilaa 70 meeqa loogu talagalay meesha waxaa loogu talagalay 55 okay waa 10 markaa 10 bay markaa dhaafsan tahay marka waxay saas bay ku tiray marka markii ugu horeysay aan tigir qaatay ahayd qaladaad kalena waan sameeyey laakiin waan u sheegay waxaan ku ori taas markii ugu horeysay tigir lagu istaajiyo wayaan waxaan sameeyey suunkaan furay waxaan siri u degtid waxyaalo aanan yani ku fikirin ayaan sameeyey markii la sheegay lagu hadii aad degilay way ku jeegalay alxamdulillah bismillahir rahmaanir rahim ku badbaadi marka wow that's very tough marka hadda nin baa la soo diray Jackson la yiraahdo oo lawyer qof baan weydiiyey kaas baa la soo diray marka waxay ku yiraahdeen 300 buu ku bilaabaa haddana hadhow wax kala siinaysaa marka normally anu mawliga aqoon laakiin waxa rabay qof Jackson ka waa lawyer miya I think Soomaalida marka 300 siinaysaa lawyer ka hadhow lacag kale ka rabaa bixinaysaa hadhowna lacag kale ka rabaa markuu dacwad lacag kale 300 markuu ka qaato haddana lacag kale ka rabaa lacag kale ma lagu sheegay intay tahay 150 bari guri hadduu kiiska soo weyn gareeyay markaas hadduu kiiska soo weyn gareeyay adiga waa tagaysaa ma lagu yiri meesha waa imaanaysaa ma ku yiri isaga soo dhameeyo may qofkun baa ii sharaxay isoo siiyay laakiin isaga just waan la hadlay information ka la wadaagay wuxuu guuri marka warqadii baa iga luntay tigirka ku qaatay naagtu isisay marka wuxuu guuri maadaama hadda kiiska lambarkiisa failka lambarkiisa aanad haynin film lambarka aanad haynin waxa sameeynaya Mondayda birthday-gaagi waxa soo diray magacaaga full ah waxaan ka eegayaa system-kaygan galayaa waan eegay xagga sankeega marka Mondayda ayuu guudoon kula soo hadlay okay marka waxaan rabaa khiyaarta meesha saaran gabadha kulay way sharaxday hadda meesha hadda sheekadeeda joogto inaan ka qaadno oo lawyer ka fiican miyaa loo heli karaa lacagtaas ma badan tahay maxayse lawyerka ay expectationkeeda u noqon karaa intaas ugu muhiimsan mid kale aan ku darsanaya waxaa u baahan yahay qof aan ku aamini karo kiiskayga ninkan ama uuliga aqoon just Soomaali baa ay faantay Soomaali waxay faantana kulli madow baa ku jira iyo waxaan maxamed madow galgalnaa macnaha maxaa tiri community-ga dhanaa lugta la bartay
waa perception no soomaalida wax kasta waxay soomaalida soo maraan ninka iyaga lacagta intaa maaha qof uu u sameeyey inaan kale u sameeyey baan la hadlay waxaa ka jiraan ilaa 150 ilaa 200 buu iga qaatay ninka ii soo dirayna wuxuu gu yiri just waxa kugu tagaysaa ilaa 500 400 iyo 50 bii kugu tagaysaa marka waxaan maleynaa wada shaqo waxay soo marka wiilkaas kaaga jawaabayso ku soco wiilkaad soo baxay ku soco waa keeskan hadda kaliya match kaliya kuma dhamaanayo wuxuu soconaa at least haday u badnaato waqti badan nimankan they gonna offer you waxay ku leeyihiin qaado deal qaado laakiin dealkii ku afar gaar ha qaadan mar hadaa qaadateen systemku ku galaya yalla big ma fahmaysaa marka iska ilaali bal okay lawyerka waxaa tiri magaciisa waxaa la Jackson miya wala Shakabi ha may Jackson baa leeyahay laakiin meel digay ma aqaan adiga Shakabi ka meeshan ku qaatay waa Shakabi ayay ku soco wiilka u soo jawaabay ma ka fiirisay walaalo Alexon walaalo ma ka fiirisay hoodo licenkiisa ninkan qaranka ku ah license buu leeyahay door labar buu leeyahay aduu maad ku investigation maad ku samaysay odagan oo inuu hadda kor la soo qabsaday inuu dad mataqaan soo qabtay dib aduu ma baadhay talkaalanku weydiin waxa weeyaan 3 cusba ku banaan maxkamadda hadii aad tagto ha tagin maxkamadda ilaa aad tagto DF aad tiraado $9 fee baa la iska qaadaa waxaad dhahaysaa maxaa igu jarad aysaa baadaysaa rekorkeyga wax walba farta laga saaraya adoo diyaarsan oo warqadii inta lagu wax kasta adoo mataqaanaa farta adoo waxa mataqaanaa farta laga saaray baa tagaysaa lawyerku lacagtu ku badan yahay xaqiiqatan ku badan yahay laakiin bisharta waa inuu ku dhamayaa bil gudood waa inuu ku soo afjara tirka waa inuu tan gudaha una ku gelin waa inuu mataqaanaa una ka dhigin lawyer fiican qof yaqaan ma jira ama lawyerkaas qof la deal garay ma jira Jackson oo Shakabi ah haduu jiro ama lawyer fiican garanaysaan gaban inta flow garaysaan u sheega marka waxay hadda u baahan tahay waxa weeye lawyerkii way haysataa qof la shaqeeyay iyo yani lawyerkan maxay ka filan kartaa inuu u qabto what's the outcome waxay ka filan kartaa ustaadi inuu mataqaanaa lawyer kale inay mataqaanaa ay isla shaqeeyaan baa macquul dadku ma fahansano lawyeradu waa saaxiibo waa team qof saaxiibkii mataqaanaa ma dacweynayo marka waxaan kula talin lahaa ani hadda ka hor qofan ku caawiyay oo la dhaho Cabdinaasir wiilka Soomaali Tunisia degan naagu la shaqeeya oo naaga cadan la shaqeeya way siiqaanaan oo qof Soomaaliya waa ku fahmaya af Soomaali ku fahmaya oo sharaxaysa lacag u qaadanaya ilaa adiga $1 keer u qaadanaya laakiin maxkamadda ku raacaya laakiin mise dhimar su'aal mataqaan lagu gelinaya hadii aadan kasi dacwoonin oo aadan baan dib u qabsan marka dacwadu hadii lagu dhaho okay iska baxdil ma taqaanaa maxkamadda waa in dib aad u dhigtaa aad ku tiraada inuu igala ma rabi waa aad ku tiraada marka waa in aad difaac gashaa adiga laakiin laga dhaadhicinin lacagtina hoo misdhimisna hal ii geliyo 4 years na fikirku ka taqaanaa okay waa ku faana thank you gorgor ku soco